assalaamu calaykum. In badanoo inaga mid ihi dunuubta ay gelayaan waxay u macaansadaan sida fruudka iyo qudradda loo cuno, mana arkaan in ay tahay wax ay ku mutaysan karaan cadaabta. Xantu waxay ka mid tahay dembiyada halista ah ee qofku uu ku mutaysan karo inuu camalkiisii uu camal falayay oo dhan aakhiro u khasaaro, adduunyadana uu ku noolaado sharaf darro. waxaa jira waxyaabo ay halhays u lahaayeen dadkii saalixiintii hore. xasanulbisri ayaa wuxuu odhan jiray xantu waxay noqotay faakihatu nisaa, waxyaabo ay dumarku sida qudradda u cunaan. haddana xilligan aynu joogno ragga laftiisu si khatar ah ayay dunuubtaas xanta u galaan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh wattaquu allah ina allaaha tawaabu raxiim. dadku markay waddooyinka marayaan ee ay sheekaysanayaan waxaad moodaa in ay ku sheekaystaan inta badan xan, iyagoo u arka inay tahay information iyo sheeko wadaag. waase dunuub la dhayalsado oo lagu mutaysto cadaabta. dadkii hore ee saalixiinta ahaana way ka digtoonaan jireen. can ibni cumar ayaa waxaa laga warinayaa in uu ka sheekeeyey in nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida mambarka intuu fuulay uu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanih walam yufdi liimaanu fii qalbih laa tu'du lmuslimiin walaa tucayiruuhum walaa tattabicuu cawraatahum fainahu man tatabaca cawrata akhiihi lmuslim tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratah yufdixhu walow fii jawfi raxlih. qofka muslimka ah qofkii ceebihiisa raacraaca ilaahay isaga ayuu fadeexadeeyaa. maalin maalmaha ka midna nebigu wuxuu soo maray 2 qabri isaga oo kor taagan ayaa waxa uu yidhi innahumaa yucadibaan, 2dan qabri waa la cadaabayaa, wamaa yucadibaani fii kabiira, lagumana cadaabayo dembi weyn markaad u aragtaan indhihiinna iyo saad u aragtaan. ama axaduhuma midkood waa kaana yamshi binamiima, midkood waxa uu shaqaba ka dhigtayba oo had iyo goor ku mashquulsanaan jiray inuu dadka isku diro, oo uu sidii sharaab qabow oo uu cabbayo iyo fruud uu cunayo iyo farxad marka uu maqlo war xun iyo qof ceebtii inuu maqlo waxaad moodaa inuu sidaas uu ku degdegayo. laakiin cadaab iyo ehlunaarnimo iyo murugo iyo qoomamo iyo fadeexad adduun iyo aakhiro ayuu qofkaasi shaqaysanaya. waxaa loo baahan yahay qofku ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka cabsoodo. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma taqaaniin qofka mufliska ah. muflisku waxa weeye qofku marka uu hanti aad u fara badan leeyahay ee uu hal mar kaco ee uu micnaha hantidii dhan ay faraha ka baxdo. asxaabtii waxay u arkeen hantida adduunka iyo waxyaabahan la khasaaro. nebigu wuxuu yidhi khasaaraha dhabta ahi waa qofka maalinta yowmalqiyaamo yimaada isagoo oo ajar fara badan soo shaqaystay, soo soomay, soo salaaday, wax soo sadaqadaystay, camal saalixa sameeyey, wax walba ka soo shaqeeyey, ee ay maalintii qiyaame u yimaadaan dad shatama haada wa dalama haada wa akhada maala haada. qofuu dulmiyey, qofuu xantay, qofuu maalkiisii qaatay, qofuu dhiiggiisii daadiyey, 2 qof oo uu isku diray. ummaddii oo dhan baa fayl u soo gelaysa qofka camalkiisii iyo wanaaggii uu samaynayey. kadibna qof kasta oo uu wax ku sameeyey oo dembi ka galay ajarkiisii ayaa dadkii loo qiibinayaa, indhihiisa oo shana isaga oo taagan. marka ajrigiisii iyo xasanaadkiisii ay dhammaadaan ayaa weli waxaa fayl ku soo jira dadkii uu iska macaansan jiray, ee uu sida qudradda u cuni jiray, ee uu iska dulmiyi jiray, ee uu iska xaman jiray, ee uu maaragtay samcaddooda dili jiray. dadkii baa fayl u soo gelaya, ajirkiisina waa dhammaaday. maxaa la samaynayaa? wuxuu bixiyo ma haysto, dembina waa loo haystaa. waxaa la samaynayaa dadkaa dembigooda ayaa la soo qaadayaa oo laga khafiifinayaa iyaga oo isaga la saaraya. kadibna wuxuu noqonayaa muflis, qof khasaaray oo ajri iyo xasanaadkiisii oo dhanina ay baaba'een, dembiye uusan galabsanna dad laga soo qaaday oo waaweynna korka laga saaray, sidaasuuna cadaabta ku gelaya. marka culimmada islaamku waxay yidhaahdaan qarka ayay u saaran tahay xantu inay noqoto kabiira. haddii 7 muubiqaadka la sheego ee dembiyada waaweyna, haddii wax lagu dari lahaa waxaa lagu dari lahaa xanta iyo beenta oo khatar ah. oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay
beenta in aan qof muslimihi sheegin qof muslimihi in uusan been sheegin oo ay tahay waxyaabaha adduunkan aynu aragnay kharibay beentu waa waxyaabaha hubka nuclearka ka daran xanta iyo dadka oo dhexdooda la isku dirana waa masaa'ibka ugu waaweyn ee dadka adduunka nolosha ka khariba marka qofka muslimka ah ee walaalka ee waxaan ugu nasteexaynaynaa in uu ka digtoonaado dembiga xanta la yiraahdo oo adduun iyo aakhiraba qofka sharaftiisa iyo camalkiisa aakhiro iyo bulshada lafteeda oo nabadgelyadeeda iyo istinfaacsigeedii uu baaba'ayo oo dadkii maaragtay yani nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ifsaadu daat albayn alxaaliqa dadka muslimiinta oo la isku diro waxay la mid tahay way xiirtaa nolosha way baabi'isaa naceeb bay abuurtaa dadkii baa kala dhimanaya isma intifaacsanayaan dembiga ka dhashana qofkii sababta lahaabaa iska yeelanaya iyaguna aakhiro waxay helayaan ajar qofka aad xamanaysid waad u shaqaynaysaa la wadaag walaalahaaga kale oo khayrkan u gudbi ha dhageysteen oo ha ka faa'iideysteen adiguna haddii aad subscribe taabatid waxaad heli doontaa barnaamijyada aanu diyaarino oo insha allahu tacaala aad ka faa'iidi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh